waxaan doonayaa inaad warbixin xasaasi xog xasaasi oo ku saabsan in maanta haweenkii Soomaaliyeed aroos Soomaaliyeed dadkii xoolo dhaqatada ahaa kiliyihii lagala baxayo beerkii lagala baxayo wadnihii lagala baxayo dadkii spare part laga dhiganayo waxaan doonayaa inaad idin galo kasooyin aan daba galay oo xaqiiqo ah oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose Muqdisho waxa weeye warbixintan waxaan ka soo aruuriyay saraakiisha nabad sugidda saraakiisha booliiska saraakiisha militariga iyo wadayaasha tagaasida magaalada Muqdisho bajaajada iyo baawarta tagaasida ah ayaan ka soo aruuriyay waa xog xasaasi ah waan ogahay qaarkiin markaan ka sheekeynayna qalbigiinu aad damqanayo laakiin waxay noqotay arrin aan qarin karin oo runtii aad ugu murugooday waxa dhacday nin taksiila ah ayaa waxa uu yimid nin wuxuu ku yiri waxaan doonayaa gabar inaan masaafaysto iqaad ninkii wuu qaaday afgooy meel baadiyaheeda ah ayuu geeyay ninkii halka ay joojiyay kur meel cilla ah oo cilla taagnayn halkii ayuu joojiyay wuxuu ku yiri haddaad isuukato ku soo laabanayso sug lacagtiisana wuu siiyay ninkii suuga taksiila suuga ninkii uu ma waayay wuu iska soo laabtay haddana maalmo kadib ninkii ayaa u yimid wuxuu ku yiri gabar ayaan doonayaa inaan masaafaysto kaali qaad wuu qaaday isla meeshii uu geeyay barti lafteeda markuu maray ku ii jooji lacagtu siiyay wuxuu ku yiri isug kada isug ta soo laabayna telefoon la baxay ninkii wuxuu yiri intuu la socdo ma isku luqad buu ku hadlay qofku la hadlay isku sii la hadlay ninkii wuxuu yiri waa sug waa iska soo baxaadan wuxuu yiri ayaama kadib ninkii waxa ka taxi kala qaadanayo oo gabar wato oo taxi kala qaadanayo oo gabar wato oo taxi kala qaadanayo oo gabar wato oo waxa arkay niman sidaas wada ah oo tagaasi qaadanayo niman kale ay yimid wuxuu yiri ninka ay yimid wuu ikireystay gabar buu wato qurux badan wuxuu yiri gabadha soo dikacsanay wuxuu isla meesh ninkii geey u buu geeyaa waa wareeri ninkii war meeshan maxaa ka socda tagaasidii iswar wareysteen tagaasilina wada hadlay war adiga ma qaad qof saacad faqata gabar ma wata ma geeysa halkaas waa geey oo kii kala wacay war adiga ma qaaday gabar ha inin ma geeysa meel illa ma yahay ha meel ma ka dhawaa guri ma kama dhaweyn meel baadiya ma yahay ha wariya ilaa yaqaan wixii ma taqaanaa waxaan la wadaagay ragga Shabeellaha Hoose gaar ahaan afgooy joogay ee booliiska ah ee militariga ah la wadaagay war tagaasidan maalin kasta nimanka tagaasida kireysanaya faraha badan ee gabdhaha qaadanayo war maxaa socdo bal xaaladda ma waa kartaa waa la soconay ku yiraahdeen maba ila socono iska qeyraan iska seexda ninkii taksiilaha ay u soo laabtay uu yiri ninkii waa ii maanta haddaan qaadaya haddana gabar buu wataa ninkii gabadhii buu qaatay meeshii buu geeyay haddana barti buu geeyay lacagtu sii ninkii telefoon banaan kula baxay ninkii gabadhu la hadlay wuxuu ku yiri waa ninkaan gabdho badan oo soo qaadnay gabdhihii la soo qaadana ma aragna wax soo noqonayo waana bil gudaheed intaas oo gabdhood buu wataa maalin walba gabadha loo qaadaa tagaasida kala u qaad waxna soo ma laabtaan war walaalay aan hadda kula carro arin halisa ay muuqatay gabadha ogtir naga tag ninka waa jecelnahay ninkaan ay u diraysaa ninkaan lacag badan oo siiyay waxa ii sameeyay ninkaan waa rabaa iska baxday shaqada ma ahayn taksiiri waa soo laabtay wiri markaan soo laabtay ciidanka booliiska wacay ciidanka booliiska markii la wacay ay military booliiska soo weerareen meesha waa wallahi wa billahi tallah waxa meeshii laga helay malaha waxa laga helay 63 kobood dharkii gabdhaha 63 dhar oo gabdho 63 kobood iyo baabuur uu saaran yahay bafrintijeer ay ku jiraan gabdhihii la qashay beerkoodii sababkoodii wuxuu dadasba baartooda la baxay organiskoodii iyo gabadhii oo markaas la xiray oo la diyaariyay in la gowraco oo la qalo oo markaas gabadhii la suuxiyay oo diyaar u tahay in la qalo oo geed saa ugu tiirsan ayaa la soo helay gabadhii laga fufuray waa la soo qaaday baawarkii la soo qabtay oo la soo qaaday ragii jooga la soo qabtay ciidanka qoryaha wata xitaa waardiyaha la soo qabtay wixii la baaray
rag dawladda ka tirsan Soomaaliya oo ordaya yimidba oo dhahaya nuu soo wareejiyay kiiskan marka hal katiin saraakiisha booliiska iyo militariga dhaha loo shatay waa laga qaatay baawarka laga wareegay waxaan waaba shirkad la yaqaan oo jirta oo Muqdisho ka shaqeysa oo Hargeysa ka shaqeysa oo Boosaaso ka shaqeysa oo gobolada ku faafayso oo shabeellada hoose iyo Bay iyo Bakool ku faafayso dadka hadda la qalnaayba u badan Bay iyo Bakool iyo Hiimaa shabeellada hoose u badanba gabdhaha yaryarna waxa laga qaataa Muqdisho dhowr baawurna magaalada ku jirta saraakiisha booliiska iyo nabas ay militariga waxa ku dhahay arrintan laga hadlo kama hadli karna halisteeda leedahay tagaasiri darawal tagaasira waxaan ku dhahay arrintan inta shir qabataan ka hadla kama hadli karna halisteeda leedahay warbalka waran halka la marayo maxaa la marayaa in gabdhahayni iyo caruurteeni la kaxaysto waliba gabdhihii la yiraahdo waa soo masaafaysan xamar laga wato inta la barto hotel loo dego la kaxaysto kadibna gabadhii la qasho waxa weey kiisas waa daba galeynaa waxaan leeyahay dadka eheladooda dadka gabdhahoodii waayay ee la gabdhadeedii way tahriibteen u maleynaa ee la waxa weey ila soo xiriirano kiiska way daba galeynaa hadii dawladda Soomaaliya ay qarsanaysa qaarkood madaxdu ay arrinta wax xoog yihiin oo ay qaranayaan wadooyin kale oo marno ayaa banaan ama si Soomaalinimaha inta ciid loo diyaariyay aan iska celin doona dadka la xisaabtami doona dadka liiskooda aan ku daba jiraa waa soo bandhigaya wax kasta oo ku saabsan arrinta waa soo bandhigaya hadii kale wadooyin kale oo mari doona dadku hela soo xiriiraano gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkuna war ka taxadira masaafan ku wadana inta ku wadana dadka ha aaminina waxa weey baawur baa taleefin ku jiraan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo meel walba waa la geeyay hawshaas ka socoto kaliya dadka inta la qashiyo iyo organka laga baxo organiska laga baxo ayaa la dhoofsanaya oo meel kasta loo qaadayo marakibad taagan la saarnaya waxa weeye caruurta hal la ilaashado oo gabdhaha iyo wiilasha yaryarna waxa la xiliya socotaan iyo dadka raacaysan inta ka feejignaada arrintan waa arrin halisa kaliya iyo beerka la iskala baxaya wax walba la iskala baxaya maalmahan waxa socotay dad Yurubta ka wacaya dad xamar jooga iyo gudaha Soomaaliya dhahayo fiisana waa lagu siinaya lacag $500 ku siina fiisana waa ku soo diraya hal dalhabela ku keenaya inaad kaliya bixisaan rabaa iyo waxa socdo lacag noocaas sheegay socday laakiin tan waa halis waxa weeye 60 inta soo gabdhood oo la qashay oo lagala baxay organiskoodii dawladda Soomaaliya ka aamusanta wasaaradda caafimaadka ka aamusanta wasaaradda amniga ka aamusanta dadkii oo la qabtay oo la soo bandhigay هذا صار سهل الماءها وحلاه واحد صعدة dhalinyaro taxadira oo qof walba ha taxadirto ciidanka amniga waxa leeyahay war hada aragtaan in wasiiradii iyo saraakiisha sare ee ciidankiinu ay tooyiin ka aragtaan soo bandhiga dhoofiyo ku boobsiye ka duuba oo dila hada aragtaan dadka qalnaayo oo gabar Soomaaliyeed qalayo war dila oo ka celiya dadkan dawlad ma haystaan idinka dawlad u noqdo isxil qaamo go'aan degdeg qaata hala sugunina arrinta waa serious waa calal xumo in gabdhaheena la qaato oo la qasho oo baawur oo ku jira kaymaha finjeer ku dhex jiro oo gabadhii ugu tagno saas ah ya gabadhaasi nadoonay magaca sheegay waa noosha wadna caafimaad qabtay gabadhaasi waxa aragtay markii meesha lagu geeyay bilis nooga sheekay inta nooga sheekay bas wixii meesha aad ku soo aragtay nooga sheekay waxa laga yaabaa inuu madaxweynaha Soomaaliya ogay gudoomiyaha baarlamaanka uu soo ogay ra'iisul wasaaraha uu soo ogay dad hoos arrintan ay wataan nooga sheekay ogaanay intaad ku soo aragtay indhahaaga nooga sheekay war saraakiishiyo war maalin baad dhimanaysaane kolba nimanka argixisada ay dilayay oo qaraxda ku dilayay kuwaan in daway maayaan dadkiina dhibka loo geystay nooga warramo nooga sheekeeya oo marqaatiga nool noqda fadlan like sar page-ka Facebook-ga ee Fiore TV si aad noola socoto aadna u hesho muuqaalo iyo barnaamijyo aad ku xiiso geliya muuqaalada iyo barnaamijyada aynu soo dhigi doonno ka soo dhiibo wixii aragtidaada like sar share-kana wuxuu ka caawin doonaa inaad toos ugu xirnaato page-ka caalamiga ee Fiore TV mahadsanidin